wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Hirshabelle Marwo Raxma Maxamed ayaa xaraga waxa ay ka jartay xarunta qurxinta dumarka ee Matan Beauty Salon oo ay Jowhar ka hirgelisay Shukri Matan. hal abuurka Marwo Shukri ee Matan Beauty Salon ayaa ah mid dabooli doono baahida qurxineed ee dumarka ku nool Jowhar maadaama xarunta loo diyaariyay si ka duwan xarumihii hore ee magaalada lana keenay qalab iyo dawooyinka isqurxinta oo leh tayo sare. xafladda furitaanka waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Jowhar. ugu horeyn Shukri Matan oo ah milkiilaha xaruntan ayaa sheegtay inay u dhameystireen agab walba oo looga baahnaa salon waxaana ay carabka ku dhufatay in hal abuurkan uu ku dhashay kadib markii iyada ay ka weysay Jowhar xarun dhameystiran oo ay isku qurxiyaan dumarka. waxaan ku faraxsanahay inaan gabdhaha u sameeyay muddo badan macni sugay inaan soo saaro ama aan sameeyo oo fikradeeda ahayd alxamdulillah ilaahay maanta wuu noo hirgeliyay salonka Matan Beauty Salon oo aniyo Shukri amaanta ku soo kordhiyay Jowhar oo ku faraxsanahay marka hore marka labaad waxa isdhigi karaa waa salonka ugu horeeyay oo laga sameeyay magaaladan baahiyo badan oo jiray awgood baahida ugu horeyso horta nafsad ahaan horta number 1 aniga ay iga bilaawtay oo aniga u baahnaa fikrad ahaanteeda alxamdulillah maanta heerkan ku soo gaarnay soo daahfurnayno gabdhaheegna ay la joogaan salonka wax badan macni ka jiro haddii ahaan lahayd waji la dhaqo haddii ahaan lahayd timo la fooneenayo haddii ahaan lahayd cilaan la saaray wax walbo yani salon looga baahdo iyo wax walbo aroos kasta iyo yani soo loo u baahan yihiin alxamdulillah dharkii iyo wixii oo dhan diyaar idin yihiin waxaan rajeynayaa inaad si fiican isoo dhaweyn doontiin waxaan rajeynayaa inaa yani salonka oo noqon salonkiini iyo meesha leedin ku qurxin lahaa iyo inaad si qurux badan leedin soo dhaweyn doono oo wax badan leedin sameyn doono insha Allah. gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Jowhar ayaa ka qayb galay daafurka waxaana ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin hal abuurka Marwo Shukri iyaga oo sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan. waxaan u joognaa daafurka Matan Beauty Salon oo ah meel qurxinta gabdhaha oo lagu soo kordhiyay caasimadda Hirshabelle baahi weyn loo qabay waxaad dareemi kartaan dadka ku nool degmadan inaysan haysanin salon dhameystiran oo laga helayo timo dhaqii cilaan saarkii iyo maxay ahayd wax kasta ee gabdhaha u baahan yihiin oo qurxin ah isugu nimid aan maanta xarag jaraynay Matan Beauty Salon waxaan leeyahay gabadheeda ma sha Allah fikir fiican ay keentay waxaan ku sheegay wax badan la sugayay in la helo gabdhaha meel lagu qurxiyo marka insha Allah hadii Ilaahay raala ka noqdo waxaan leenahay soo dhawow gabdhaha kalena kugu daydaano waxaan rabaa gabdhaha wax bartay inay maal geliyaan caasimadda Hirshabelle ay ku soo noqdaan dal waxa dhisa dadkiisa xalfadan quruxda badan leh oo maanta xirag jar oo ka dhacay caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle aad iyo aad u soo dhaweynaa gabadhaana dadaal dheeraad ah ay muujisay ما شاء الله همبليان ليه هرو أسوع مامو كولا بركو أنا اللي وبلاوا أنا وباهن حمرا وأهد جري كولا مركا الحمد لله وأنا الله كبركيان ليه. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Hirshabelle Marwo Raxma Maxamed oo xaruntan xariga ka jartay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay aragto hal abuurka Marwo Shukri oo loo baahan yahay in la dhiirigeliyo isla markaana xarunta ay dabooli doonto baahida qurxinta dumarka ee ku nool Jowhar. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku daafurayaa Matan Beauty Salon ee furanaysa gabar yar oo da'yar ganacsiga gabdhaha waxa waaye aad baa loo taageeraa markay ganacsanayaan reer Jowhar waxaan leeyahay ku soo dhawaada Matan Beauty Salon waa salonka ugu shidan Jowhar marka congratulations ambalyo Jowhar ayaa hadda u muuqata mid soo kabanaysa korna u kacayo ganacsigeeda kala duwan. Shukri Matan ayaana noqonaysa gabar u istaagtay baahitirka gabdhaha ee xagga qurxinta maadaama ay hirgelisay xarun caalami ah oo dabooli karta baahida ay hore u qabeen. Cabdinaasir Socdaal, Hirshabelle TV, Jowhar.